kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa si rasmi ah u shaacisay inay la soo seexatay difaaca bidix ee waddanka Spain Marco Cucurella oo ay kala soo wareegeen kooxda Brighton Hove Albion kaasoo ay siixiisa ku garaaceen kooxda Manchester City oo si weyn lala xiriirinayay maalmihii la soo dhaafay. hogaamiyaha kooxda galbeedka magaalada London ka soo jeeda ee Blue Thomas Tuchel ayaa ku faanay in tani ay tahay fariin ku socota kooxaha Premier League kadib markii laga ogolaaday qiimo ay u soo bandhigeen kooxda Brighton Hove Albion. sida lagu daabacay shabakadda xog ururinta arrimaha suuqa ee Transfer Market, Marco Cucurella ayaa noqonaya difaaca bidix ee ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta kadib markii lagu baayacay qiimo lacageed gaaraya 65 milyan oo euro, taas oo ka dhigan inuu yahay taariikhda midkii ugu qaalisanaa ee ka ciyaara baasha bidix ama difaaca bidix. booska labaad waxaa ku jira difaaca reer Faranse ee Benjamin Mendy, kaas oo hadda shaqo la'aana. waxa uu ka soo tagay kooxda boqortooyada Faransiiska ee Monaco sanad ciyaareedkii 2017 waxaana xilligaas lagu iibsaday 57.5 milyan oo euro, halka booska saddexaad uu soo galay Ben Chilwell oo isagana Chelsea ku yimid adduun dhan 50 milyan oo euro. haddaba 5 ciyaaryahan ayaa kuwa ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta ee ka ciyaara daafaca bidix ama baasha bidix. Marco Cucurella ayaa Chelsea ku yimid lacag dhan 65.3 milyan oo euro. Benjamin Mendy ayaa Manchester City ku yimid 57.5 milyan oo euro. Ben Chilwell ayaa Chelsea ku yimid 50 milyan oo euro. Ferland Mendy oo Real Madrid ka tirsan ayaa 48 milyan oo euro ku yimid kooxda, halka Nuno Mendes oo PSG ku yimid 38 milyan oo euro.